khadra daahir cabdilaahi waa hooye ku nool xaafadda maxamed moge ee magaalada Hargeysa 19 bishii January ee sanadkii 2016 ayaa ciidamada ammaanka ee magaalada Hargeysa waxay dileen wiil ay dhashay waqtigaas oo marxuumka laga soo celiyay maxkamadda magaalada Hargeysa. hooyadan oo telefishinka Star uu ku booqday hoyga ay ka degan tahay magaalada Hargeysa ayaa waxay noo sheegtay in ilaa iyo haatan aanay cidi waxba ka qaban isla markaana aanay helin magdhowga wiilkeedaasi oo ay sheegtay inay keligii dhashay waxaana intaasi ku dartay inay dhammaan martay laamaha dawladda ee arintani shaqada ku leh hase ahaatee dhagaha laga furaystay waxaana iyadoo arrintaasi ka hadlaysa ay tiri kabacdina waa la ururiyo isagoo baxsaday hadduu baxsadayna waa la soo qabto aabihii baa soo qabto saldhigga ammaan ahaan buu keenay ammaan ahaan markii uu keenay waa la xiray aroortii maxkamadda la geeyay markii laga soo celiyayna askarigaas toogtay isagoo markaa gaariga oo ka degay marka askariga markii uu toogtay askariga ciidamo ma qaban arrintii kiiskina ciidamo ma baarin markii loo tagay maxay haday taliyaha booliska sareegaas Cabdilaahi Fadli baa markii loo tagay dawladda dishay ee aasta isagii wasiirka hore arrimaha gudaha Cali Warcade isla markii saddex cisho meedkii noo yaalay saddexdii cisho waxaan ku yiri wareer iyo buuq iyo xiris iyo wax kasta ay sameeyeen taasabay nagu noqotay inaan iska asana meedkii baa noo yaalay sidii markan meedkii ku aasanay wuxuu ahaa dilku u dhacay 19 bishii koowaad 2016 imankana wada arkaysa halkay marayso bishii labaad waxay maraysaa maanta 14 bishii labaad 2018 ka maraysa isla markaa inta u dhaxaysay labadaas sanadood iyo santiga waxana waa la maaweelinay maalin walba waxana la lahaan wasaaradda arrimaha gudaha taga jananka u taga maaliyadda taga halkan taga wax allaala wax loo qabtay ilaa hadda ma jirto way jirtaa baaqi hore oo dirnay madaxweynahan cusub xataa laftiisa qaar baan u dirnay waan u raacinay barahan bulshada ayaan kala hadalnoo dicdino wada ogtahay inta madaxtooyada qof tago shicibeenan cidna oo ka rogeen inuu taagan yahay kalena aan cidoogeen marka sidaa ogeed baan baraha bulshada ugu marinay madaxweynahan aan baaq ugu dirno arintan dilka ah dhacday inuu daboolka ka qaado aan hore cid daboolka uga qaado isla markii aan ku noqonay marka dawladda cusub ay bilaabantay waxa loo tagay jananka loo tagay oo ay u tageen nimankii janankii markii loo tagayna meeraysi buu bilaabay imankana waxa uu ka xidhayba odaygii dhaleynanka albaabka ka xidho wuxuu yiri waruu waaleeyahay ku soo deynay ku bileyska markii uu yiri waxaan doonayaa inaan u tago taliyaha ay ku waruu waaleeyahay ninkana habeen ku soo deynay halkaas xaalkiisu maray wuxuu wali noo qabteen oo dawladdu ay noo qabatay ama tan cusub aan noqotay ama tii hore noqotay waxay noo qabatay ma jirto haba yaraatay horta madaxweynuhu isagu dhaguhu naga furaystay marka raggii xataa loo diray waa la diideen ay albaabka uga dhaafaan madaxweynuhu isagu saas u dhigaa nooga furaystay wasiirkan arrimaha gudaha ayaa loo tago isna ay iyo aflagaado ayuu ka buuxiyay nimanka iyo xarig buu ka buuxiyay janankan ambulance-ka ina fadana demirbeertaas buu ku jiro kolla arrimaha deegayn doona gudaha kolla madaxtooyada adigu sidii waqtiga ku dhamaado dawladda hore ka dhamaaday kulmiye waqtiga dawladdan cusub ee aan nimanka isna la jaan qaad oo de haleedin geeyo de arrinka halkii laga sii bilaabana wasiirkan arrimaha gudaha dambe anagu uma naantin wali laakiin jananka loo tago janan wuxuu iskaga kaaya kabay arnaan jirno wuxuu maaliyadda taga maaliyadda la ka siinay xaq wilkin tiina beenooday waa lagu soo noqday hadana mar labaadkii lagu soo noqday jananku wuxuu imka ku jawaabay waxba uma hayo baan ku aasan iyo sandulle waxa weeye wax go'aan oo laga wada gaaray ama laga heshiiyay ma jiro aasta dawladda dishay ayuunbay shaqadiisu Cabdi Samed Ali Ahmed telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.